Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada warka warbaahinta deegaan TV. qodobadaad ku daawad doontaana waxaa ka mid ah diyaar garowgii ugu dambeeyey shirka magaalada Dhuusamareeb. dowladda Soomaaliya oo sheegtay in ay gacanta ku soo dhigtay saraakiil ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab kuwo kalena ay dishay. madaxweynaha Jubbaland oo gaaray magaalada Dhuusamareeb. wafdi ka socda dowladda Soomaaliya oo gaaray mid ka mid ah degmooyinka gobolka Baay. qodobada dibaddana waxaa ka mid ah dowladda Itoobiya oo isooristaa ku samaysay gargaar ku socday gobolka Tigray. intaas waxay ahaayeen qodobadii warkan ugu door karoona daawadayaal. hatase ku soo dhawaada warkii oo fidsan. magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug waxaa si weyn looga dareemayaa u diyaar garowga shirka lagu dhamaynayo khilaafka siyaasadeed ee Soomaaliya iyo sidoo kale sidii dalka ay ugu dhici lahayd doorasho loo dhan yahay. inta badan madaxda maamul goboleedyada kuwa federaalka iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaana magaalada Dhuusamareeb ku sugan, inkastoo amniga magaalada si weyn loo adkeeyay. meelaha laga soo galo magaalada Dhuusamareeb ayaa inta badan waxaa la dhigay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Galmudug. madaxda maamul goboleedyada ee ilaa iyo hadda gaaray magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa ka mid ah Axmed Maxamed Islaam, علي جودلاوي، عبد العزيز حسن محمد لفتقرن، قدوميها قبل كبنادر، يو مسؤوليين كله أو كمدي هاي، قدوميها أقل كسره، عبد حشا عبد الله، وحنا سعدها سوء دن لفيليا، إن محينها بنتلان سعيد عبد الله دني وسوق جارو، مقالة Dhuusamareeb وشركة كفر مايو، مرن كوجا أذق دور شدا يا وحى ووده يا، محينها دولة الصومالية محمد عبد الله فرماجو، يو مدحوين ياشا بنتلان يو جبلان، إن كسو سوين لو سوق يو النتيجة كسو بحدونتا، شركة مقالة Dhuusamareeb. haddana dhinacyada halkaasi jooga ayaa niyad wanaag ka muujinaya in shirkaasi ay wax wanaagsan ka soo baxaan. madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa goordhow waxa uu gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug, waxaana gegada garoonka diyaaradaha magaalada Dhuusamareeb Axmed Madoobe iyo wafdigiisa ku soo dhaweeyay Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, madaxweynaha maamulka Galmudug iyo labada gole ee maamulkaas. waxaana durbaba magaalada Dhuusamareeb ka bilowday sida ay wararku sheegayaan kulamo gooni ah oo madaxdu ay qaadanayaan. Axmed Madoobe ayaa hore u sheegay in uu diyaar u yahay in magaalada Dhuusamareeb uu tago isla markaana shirkaasi uu ka qayb galo. ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya si gaar ah guutada 15aad qaybta 22aad iyo sidoo kale ciidamada gorgor ee dowladda ayaa howlgal qorsheysan ka fuliyay duleedka magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug. howlgalkaasi ayaa waxa uu ka dambeeyay ka gadaal markii dagaalamayaasha Al-Shabaab weerar hoobiyaal ah ku soo qaadeen magaalada Dhuusamareeb oo inta badan mas'uuliyiinta Soomaalida ay halkaas ku sugan yihiin. waxaana la sheegay intii howlgalkaasi uu socday in dagaal kooban uu dhex maray ciidamada militariga Soomaaliya iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab. war ka soo baxay taliska ciidanka qaybta 22aad ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada ay dileen 3 xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab oo uu ku jiro sarkaalkii qaabilsanaa deegaanada u dhaxeeya Ceelbuur iyo Dhuusamareeb kaas oo magaciisa lagu soo koobay Cabdinaasir. sidoo kale taliska qaybta 22aad ayaa sheegay in howlgalkaasi lagu qabtay labo xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab halka kuwa kalena lagu dilay. wafdi uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda Soomaaliya Cabdinaasir Maxamed Nuur Jaamac ayaa waxa ay gaareen magaalada Bardaale ee gobolka Baay. wafdigan oo ay qayb ka ahaayeen Xaniifa Maxamed Xabsade iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale ayaa waxa gegada garoonka diyaaradaha degmada Bardaale ku soo dhaweeyay maamulka degmadaasi. ujeedka wafdiga ka socda dowladda Soomaaliya ay degmada Bardaale u gaareen ayaa waxa lagu sheegay inay tahay sidii qiimeyn ay ugu sameyn lahaayeen xaaladaha bani'aadantinimo ee ka jira degmada Bardaale oo dagaalamayaasha Al-Shabaab ay culays badan ku hayaan. wararka ayaa waxa intaas ku darayaan in xubnaha wafdiga dowladda Soomaaliya ka socday ee halkaasi gurmad gaarsiiyeen inkastoo sida la sheegay uu yahay mid aad u kooban. dowladda dalka Itoobiya ayaa gebi ahaanba isooristaa ku samaysay gargaar qorsho oo ahaa in la gaarsiiyo gobolka Tigray ay degaan ee ku yaala waqooyiga waddanka Itoobiya. ilaa iyo hadda xukuumadda dalka Itoobiya ee Addis Ababa ma sheegin sababta rasmiga ah ee gargaarkaasi loo joojiyay, inkastoo wararka qaar ay tilmaamayaan in dowladdu ay codsatay in gebi ahaanba gargaarkaasi ay baaritaano ku samayso. gobolka Tigray oo labadii bilood la soo dhaafay ka jirtay xaalada aad u adag ayaa imika hay'adaha gargaarku waxa ay sheegayaan in halkaasi ay ka jirto xaalad nololeed oo aad u liidata. madaxweynaha maamulka Tigray Debretsion oo dhawaantan warbaahinta la hadlay
ayaa waxa uu sheegay in dowladda Itoobiya ay gumaad ka geysanayso in ka badan 60,000 oo qof ayaa ka qaxay gobolka Tigreega kuwaas oo u cararay dalka Suudaan waxaana la warinayaa in halkaasi ay ku haysato nolol aad u liidata dowladda Itoobiya ayaa waxa sheegtay in gobolka xaaladiisu ay weli aan deganayn sida daraadeedna mas'uuliyadda gargaarka u soconaya dadka qaxootiga ay tahay in la hubiyo ilaa iyo hadda buuraleyda dalka Itoobiya si gaar ah waqooyiga waxa ka soconaya duqeymo la eeganayo madaxda sarsare iyo maleeshiyaadka u dagaalamaya maamulka TPLF Dr. Debretsion oo ah madaxweynaha maamulka Tigreega ee laga itaal roonaaday ayaa dhawaantan waxa uu xukuumadda Abiy Ahmed ku eedeeyay dadka shacabka ah ee ka soo jeeda deegaanada maamulka Tigreega isagoo beesha caalamkan uga baaqay in tallaabo laga qaado taliska ra'iisul wasaare Abiy Ahmed inkastoo markii dambe afayeen u hadlay dowladda Itoobiya uu sheegay in uu been abuur yahay warka Debretsion ee ka soo baxay isla markaana ku saabsan in xukuumadda Itoobiya ay ku tacadinayso dadka ka soo jeeda gobolka waqooyiga ku yaala dalka Itoobiya ee Tigreeg way degaan warkaad ka daawanaysay warbaahinta deegaan TV ayaa inta ku dhan warkan warkayga intaan ku kulmi doona nabadgelyo